قبل الساق إسرائيلية أنا هاي وين جايبها كفكرتي for my life أنا مركز هو في الجرين الإسرائيلية هاي إسرائيل أي جار كعدون تاجب كعيدا ماذا إسرائيل أي جارسيين وحوح كقري عبد الله آدم عمر ويب مريكن كيدا لك غير قربات مرنا ما أقبليان إن قوة كره وأن كأهين تا إسرائيل أي كسب بحد قبل كبري قد حي waxaynu muujinayay dhacdooyinkii hore uga dhacay gobolkaas oo ku meel kasta ka muuqo waa lagu muunad beela arkay iqariyay ayay ku dambaysaa Soomaalidu way la yaabi jirtay afkaaraha xaq jirka ah ee maamulka gobolka afduubka ku haysta ee la magac baxay Somaliland balse Mareykan shacabkii ayaa waxay ku dhagan yihiin maamulkii kadib markii ay taageero afka ah oo waliba warbaahineed ay u fidiyeen yahuuda dagaalka lagu jiro sababahan yaab kale oo dhakafaarka kugu keeni doona ayaa sababay in maamulka afduubka ku haysto gobolada waqooyi gaar ahaan gobolka waqooyi galbeed iyo togdheer oo xilligan taageerada noocaas fidiyo waa laba sababood ilaa saddex sababood ilaa afar sababood oo yaab ka kugu ribi doona halkan ku kula wadaagi doona Samafale Cabdulmalik Sheikh Muuse Coldoon oo kamid ah dadka deegaanadaas ka soo jeeda una dhashay beesha Isaaq ayaa kamid ah dadka sida adag uga soo horjeestay sida oo kalena weerarka culus ku qaaday maamulkan afkaarta xilligan uu ku taageerayo yahuuda waxa uu tiriyay ama uu qoray gabaygii uu 100 sano ka hor ama qarniyo ka hor uu tiriyay rabbi naxariis jannaha ka waraabiye Sayid Maxamed Cabdillah Xasan kaas oo uu kula hadlayay markii dad ka soo jeeda deegaanadaas ay markaasi laga reebi waayay ama taageero dadban u noqdeen ama ay tiftif u noqdeen gumaystii Ingiriiska oo xilligaas ay iswajahayeen daraawiishta waxaana markaasi Soomaalidii la dagaalamayay Ingiriiska tiftif iyo mataqaana inay gaalada xambaaraan markaasi keenay dad deegaanadaasi ka joogo iska soo jeeda sayidka gabaygii uu tiriyay ayuu isticmaalaya Coldoon waana gabaygii ahaa nasaarada waxa u taabacdeen waa najuusnimo naaquudayaal iyo kufraad nabiye moodeene nasabadaatihiin gaaladaad nici lahaydeen ninkii Coldoon ahaa markaas bul dadkii Soomaaliyeed oo dhan ayaa ku farxay soo dhawaada dhamaantiin muuqaalkan la gareeya share gareeya YouTube kana ku soo bira aad u mahadsantiin intaana u gudbin haddii aynu horay u ogeyn in maamulkaas afduubka ku haysta gobolkaas togdheer iyo sidoo kale waqooyi galbeed uu horay dadka ka soo jeedo ee miidiyaha ka hadla ma ahan inta wanaagsan dadku waa inay ku kala soocan yihiin dadka reerahaas oo mataqaanay sharafta leh kama hadlayno laakiin inta mataqaanay miidiyaha timaada waxay xataa garan waayeen haybta ay yihiin boqolaal haybood oo kala duwan ayay xiliyadaas sheegteen muuqaaladii laga soo gudbinayna kuwan ay ahaayeen waxa maanta si dheer in taageero u fidiyeen mataqaanay yahuuda oo waliba telefishinka maamulkaasi sida halkan uga jeedaan lagu baahinayo wallahi waa yaab mana yara bal la ark waxa la yiraahdaa isxaaqiyiin baa la yiraahdaa nimanka Falastiin baynu walaalana أكم from Israel نير ربانا إذا سمعنا نحن عرب baanu nahay beesha dir baanu nahay waxaanu nahay hadaanu isaaq nahay niman maxamed xiniftira ah oo bahadira halkaynu dirka soo galay beesha isaaq waa niman irira isaaq waa carab kor waxaan ka hayay Soomaaliyeed oo isku sii diiwaan jiro dir baan ahay nin iga qabiilkiisa ma jiro hadaan hoos ugu sii diiwo beesha isaaq halka laakiin kelmadan aad leediin carab bilid عرب وي وصلت انه عمد وبننا waxa weeyaan dawada kan wada kabarku sheekh saaqi ayuu afrika kibay shaqeynaa isaaq waa irin Soomaaliyeed قبل الساق إسرائيلية أنا هاي وين جايبها كفكرتي for my life inaynu nahay dad aalubayda oo sheekh Isxaaq uu ahaa nin shariifa oo ku abtirsada Hussein bin Ali radiyallahu anhu إسرائيلية هاي قبل الساق إسرائيلية أنا هاي
weligay baan ka fikiri jiray for my life anigu markastaba waa filgarayaan israa'iiliyadahay I have feeling my soul naftayda mar walba waxaan ka fikiri jiray I come from Israel anoo yar baan ka fikiri jiray am Israa'iili inaan Israa'iiliyiinta iska dhaadhicino maadaama aynu ka nimi iyaga ilma yaxye lahay nagu meel kale kama iman marka waxa weeye maadaama dadka ka nimi wareenu eriyan carabtu ay nagu dirin carabtu waa kilaab weeyaan weeyaan soo dhaweynaa ilma bin Israel because we are ilma bin Israel am Israel أنا بسوماليلاندي أنا إسرائيلية هاي سوق هذا أنا عرب هاي أنا عرب ترى وان هلاي ماشان كيف ودادتي بنوتي الشيخية دي إسرائيل haddii shalay haybta ay ku weerarsanayeen oo intaasoo abtirsi ay yeesheen maantayna waxay taageero u fidinayaan yahuudi sidaad halkan uga jeedaana waa telefishinkii wax yar oo ka mid ayaan idin dhageysiinayaa muuqaalada ay ku taageerayaan yahuudda oo uu telefishinkaasi baahiyay aynu wada dhageysano kici doontaa gagabka ciidamada Israa'iil ay gaarsiiyeen waxa wax ka qoray Cabdilaahi Aadan Cumar Wayab Mareykanka iyo dalalka reer galbeedku marnaba ma aqbalayaan in quwad kale oo aan ka ahayn ta Israa'iil ay ka soo baxdo gobolka bariga dhexe waxa inoo muujinaya dhacdooyinkii hore uga dhacay gobolkaas oo ku lug lahaa burburinta dalal ka mid ah kuwa bariga dhexe oo isku dayay inay dhinacyadooda xuduudda ciidan iyo soo saarista hubka halista ah kala sinmaan Israa'iil hase yeeshee higsigoodii hankoodii iyo hamigoodiiba cagta la mariyay dalalkaasi waxa ugu horeeya wadamada Masar iyo Suuriya oo Israa'iil iyo xulufadeedu ay burburiyeen toddobaadmeeyadii ciidamadii ay muddada dheer soo dhisayeen waxa ay Israa'iil dagaalada xoogan ku qabsatay dhul baaxad leh waxa ku xigay sideetanaadkii oo Israa'iil xagga cirka ka duqaysay warshadii nukliyeerka ee Ciraaq mar labaadkii aad iyo aad laba sababood oo yaab leh ayaa la wadaagay inay ku sababtay arrintan in xilligan la taageero qoladan gobolkoodu dhacay ee yahuudda ah waa markii koowaad waxaan soo baaray in qolada telefishinku ama maamulka telefishinka maamulkaasi ay fariisteen oo ay dhaheen nimayow xilligan ummadii islaamka ahayd gaar ahaan Soomaalidu nama hadal hayso oo wararkii Soomaalidu xilligan way xiisa dhiceen maanta dhan hadaa leedahay dagaal baa wuxuu ka dhacay meel heblaayo cidna ma daawanayso cidna kuma dhageysanayso dadkii wuxuu attention-koodii u sii jeedaa bariga dhexe dagaaladii halkaas ka dhacay oo Israa'iil iyo u dhaxay Iiraan bay dadkii ku sii jeedaan sababaan attention-ka dadka u soo leexin karnaa ama ma taqaanay kacdoonka ummadda islaamka iyo muslimka ah aynu ugu soo celin karnaa in inaga la ina soo fiirsho oo inaga ma taqaanay la ina hadal hayo macna iyaga waxay jecel yihiin in markasta warbaahinta Soomaalidu ay dhahdo Hargeysa oo Hiblaayo saasa maamulka Hargeysa wax saas ay ka dhacay wax saas noocaas ka dhacay dhahan xilligan dunidii bariga dhaxay ku sii jeeda dunidii oo dhan halkaas ay ku sii jeeda waayo nolosha adduunka oo dhan waa bariga dhexe way hal kanaal oo kamid ah kanaaladaas hadii hal mar la xiro ama bumba ku dhacdo dunida oo dhan way xirmaysaa xataa diyaaradiiba ka kala cararay waana kanaalka Hormuz la yiraahdo oo hadda Iiraan ay gacanta ku hayso hadii hor istaagto kanaalkaas kaliya ay daqiiqad xirto ama saacad kaliya shidaalka dunida oo dhan hoos buu kor buu kacayaa qaali sidoo kalena maciishada oo dhan baa qaaliyoobis marka adduunkiiba halkaas u sii jeeda xataa sunniyiintii Sacuudi Carabiya oo taageersanaa xulafada Mareykanka ayaa waxay uga duceynayaan xarameynka dad baa waxay ku sheegeen in Sacuudigu ma taqaanay ka baqayo in kanaaladaas xirmaan oo ay caaqadaan sidaas darteed ay u taageerayaan shiicada ee wanaagaysan ka ahayn shiicada Iiraan inaysan u taageereen wanaag oo ay u duceynayaan si dagaalku inta uu qababo ma taqaanay noloshu ay caadi ugu soo noqoto xataa ma taqaanay Iiraaniyiinta xajka imaaday dib u dejin u sameeyeen iyagoo waji ka sameysanaya ma taqaanay si walba adigu macnaha qodobkaas waxa weeye in attention-ka ummadda oo sii jeeda ay isku soo jeediyaan laakiinsi waa waxay ku jabeen adduunka waliga kacdoon bulsho lama hor istaago xataa kacdoonka markuu daga wax ka dheh laakiinsi dad taagan ama islaam hadda Soomaali kaliya ma aha waa ummadii islaamka ahaayo dhan waxay la diran yihiin Iiraan shiicana ha ahaata haday rabtay madaahibtii sunniga iyo shiicada meel baa la iska dhigay hadda dadkii dhan waxay taageersan yihiin Iiraan hadda hor istaagto waa lagu jiiraya waa lagu dardaraya iyaga kama fal welwelin taas iyaga taas kama aysan welweline
seebaynu attention u helnaa baa lagu gaaray go'aan waa lagu soo tuuray dee xanaaq Soomaalidiina waa xanaaqday waa la dardaray xataa Soomaalida la yaabanayday iyagiiba isla sii yaabay taageerayaasha maamulkaas la yaabay war ma diinta naga saaraysaan war kala garta qadiyadii ma taqaanayay Soomaalinimo Soomaalida aynu isku haynay iyo waxaynu islaamka la nahay war islaamnimada meelaha inaga dhiginina waa wareeg macnaheedu ma ahan haday Iiraan taageertay inay islaam tahay laakiin si xilligan kacdoon shacab oo muslimiinta caalamka oo dhan ba socdo marka dadkii Soomaalidu haday la yaabanayd waxyaabaha ay sameynayaan awal oo heshiiska ay la galayaan Ethiopia gooni goosadka oo la cayilinayo ma taqaanayeen gorowiyo kuwa xintama waxa iga xiga amxaar xurmiye sharafiguna waxa soo dhaanta soo dhamaatay islaamnimada waxa iga roon yahuudkaasay soo maraysa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Soomaalinimadii hadii awal ma taqaanayay la yiri gorowiyo kuwa xintama waxa iga xiga amxaar xurmiye sharafiguna nool malihin cadow xamar ka daran hadda waxay maraysaa malihin cadow ka daran islaamka inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahu islaamnimo nagu dil oo dhamaanteen iyo qof kasto i daawanayo ku dil oo ilaahay ma taqaanay khaatumada khayr haynooga dhigo oo ilaahay khaatumada haynoo hagaajiyo wacd allaana tan la sii joogayna ilaahu khaatumada anaga ka neersinay gorowiyo kuwa xintama waxa iga xiga amxaar xurmiye sharaf igu nolol iyaga laha maantana iyaga akhrinaya taageersan ma taqaanay yahuuda say u helaan attention qodobkaas ku kalifay qodobka labaadna waa qodob ay muddo dheer dhaqan u lahaayeen sayidkuna ka gabiyay ma taqaanay xiliyadaas ka gabiyay hadda maalmahan dambana la arkay hadda markii uu dhintay baadargii weynaa ee Pope Francis waan u duceynaa ayuu dhahay wasiirka arrimaha dibadda u qaabilsan maamulkaas inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun hatta dalalkii muslimka ahaa oo cilaaqaad kala lahaa Talyaaniga ama Roma meesha uu ku dhintay si dadban bay uga hadleen ninkaas baqtiyay bay qaybtoodeen ma taqaanayay rest in peace nabad ha kullada bas iyagana sidii qof dhintay oo wadaad ama sheekh dhintay u duceeyeen macnaheedu maxaa weeye attention si loo helo waa marka koowaad waa marka labaadna si adduunku u soo fiirsho oo indhaha adduunka oo dhan ay u dhahan wadankana geeska Afrika ku yaalo islaamnimada iyo waxba aan xirinayn ma taqaanay hal taageero ictiraaf la siiyo waxa kaniisadu waa laga furay oo culimadii dhan baa la yaabanay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxa aslan maxaa weeye waa ictiraaf helala qodobka labaad markii waxa lagu sheegay in ictiraaf la helo si ictiraafki u sahlanaado maalmahan waxa maqlaynay Trump oo aqoonsanaya Somaliland Israel oo saldhig martaqanay rabtay inay ka hesho berbera Israel waa in loo soo celiyo dhanka Somaliland si saldhig uga samaysato ay xuutiyiinta uga duusho anaga xuutiyiinta waxba nagama gelin inaan ictiraaf helno waa inaan u galno futadan yar inaan ictiraafisho marka waa inaan godadka Netanyahu ku dhuumanaya la gashay waxaan la gantaalada Iiraan iyo sidoo ku dhicin xuutiyiinta bal Netanyahu god uu ku dhunto ay taado ma haysata waxaan maqli jiray faariyaha qaranku kuma fararay farta isku fiiq waridu farta isku fiiqinina bogcada asirta ayaa la burburin yaan la ololin anaga dhibaato noo soo jeedinina Soomaali baa tiin dad ehelkay walaalahay baa tiin hadii saacada dhibidin gaarto anaga naga maqan way isla ololeynaa boosasa xirmaysa kullu waa xirmayna hal gantaal lagu dhufto bas bay xirmaysaa yahuuda aragteen oo xilligan ma taqaan u dalaalinaysaan godad dhulka hoostiisa ay waxay samaysteen 50 sano ka hor 70 sano ka hor bay samaysteen aduu ma godad ba haysata ma haysatid wax godad ma leedahay maanta maya burbur waa lagu burburinaya marka waxaan leeyahay qodobkaas labaadna saas la igu sheegay oo ictiraafki uu ballan qaaday meel uu ku ballan qaadayna ma jirtay macnaheedu website-da Mareykanka qorayay oo waxay Trump baa wuxuu aqoonsanayaa Somaliland sidoo kale Israel baa waxay indhaheedu iyo dhan u soo jeedisay aliyo Somaliland marka waxyaabahaas baa la rabaa in dib loo helo ay Israel noqoto wadanka Somaliland ay noqoto dadka kaliya ee taageeray qadiyada Israel sidaas darteedna ma taqaanay loo helay ictiraaf diintoodii iyo aakhiradoodii iyo ma taqaanay Soomaalinimadoodii iyo muslimnimadoodii siisteen war sunniga shiicay dadku kala yihiin sunnigii baana ku dhici karin xataa xilligan inay taageeraan Israel ama xataa gargaar iyo firiya arka Jordan iyo Iraq iyo Qatar iyo ma taqaanay Imaaraatiska iyo Masar oo xataa wax yar u baalkiinaya dagaalkan ka hadlaya
indhaha adduunka muslimka ay dhanba ku jeesanaya waa la karkaarka la weydinaya kacdoon bulshay ka baqaya saacadan sacuudiga kacdoon bulsho ka baqaya boqortooyada sacuudiga masar saasoo kale ka baqaysa ummadda islaamka ay ka baqayaan ay ku kacaan hal mar la daad ku qaado marka waxaan leeyahay wardaadku yuusan idan qaadin waxa ugu yar oo ay la kulmeen waa shacabkii oo caldoon hogaaminaya weerar ku qaaday naaquudayaal iyo kufraad nabiga moodaan nasaarada waxa uu taabacdeen waa najuusnimo ma taqaanay nasabadaatiin gaalada aad nici lahaydeen waa gabayadii sayidka marka waxaan leenahay isku eka maalmihii ingiriis iyo reer galbeed ay fooda isdireen soomaalida xilligaasi joogtay oo sayid maxamed cabdilaahi xasan uu hogaamiyaha u ahaa iyo maanta oo iiraan iyo ayatullah khumeyni ay fooda isdireen reer galbeed iyo xulafadooda meelaha la kala istaagay 100 sano ka horna waxay istaagnaayeen dhanka safka aan reer galbeedka iyo gaalada maantana waxay taagan yihiin dhanka safka reer galbeedka iyo gaalada marka waxaan leenahay waano أبو ريس كو الرئيسي فريق في السعير وفريق في الجنة يمدي النقطي فريق في الجنة قضتك مسلمين تاجرسن إيران وفريق في السعيرنا وارهر قلبيات يحلف فضوضة مركي الدون كأنه جبنه بارهر قلبيات يحلف فضوضة للضغط إنا لله وإنا إليه راجع وغيبتها سيدون كنا رسيدنا يقولوا ذاك آد بن السلام يا ملك الساجك تنقرأوا